halkan waa warbaahinta cusub wararka maantana waxaa kamid ah ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Xamse Cabdi Barre oo xilka kala wareegay ra'iisul wasaarihii hore ee xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Xuseen Roble ra'iisul wasaare Xamse ayaa u mahadceliyay ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble isagoona kaga mahadceliyay howlihii adkaa ee uu ka soo qabtay xukuumadda intii uu xilka hayay gaar ahaan doorashooyinka dalka kuwa baarlamaanka iyo kuwa madaxweynaha Suudaan oo u yeelatay safiirkeeda Addis Ababa kadib markii ciidamada Itoobiya ay ku sugan xadka ay Suudaan la wadaagaan ay ku direen 7 ruux oo mid kamid ah uu yahay shacab Suudaan ayaa falkaas ku tilmaantay inay aad ugu xuntahay sidoo kalena militariga Suudaan ayaa iyaguna wacad ku maray inay ka aargudo doonaan dhigooda Itoobiya halka wasaaradda arrimaha dibadda Itoobiya ay war soo saartay ku sheegtay in warkaas uu yahay mid la buunbuuniyay ayna aad ugu xuntahay falka halkaas ka dhacay Iran ayaa codsatay inay ku biirto ururka dhaqaalaha ee loo yaqaan BRICS ayaa waxa ku midaysan wadamada Brazil, Ruushka, India, South Africa iyadoo Iran ay doonayso in ay ururkaas ku biirto si ay u horumariso arrimaha dhaqaalaha Iran ayaa muddo naawilaysay in ay jaalan noqoto wadamada Shiinaha iyo Ruushka oo ururkaasi ku midaysan wararka ciyaarana waxa kamid ah ciyaaryahankii hore ee kooxda Manchester City Gabriel Jesus ayaa ka degay magaalada London si uu u dhameystiro heshiiska ugu biirayo kooxda Arsenal ee ka dhisan caasimadda Ingiriiska iyadoo kooxda Manchester City ay bedelkiisa hore u soo qaadatay ciyaaryahan Haaland iyo Julian Alvarez oo ay kala soo wareegtay kooxda River Plate ee ka dhisan dalka Argentina waa naga inta warkii kooban